dagaalku wuxuu ku dhacay si kali soo fudud dhul daaqa oo la wada daaqayahay markii dambe wuxuu isku rogay qaab siyaasadeed niman sheeganaya inay xildhibaano yihiin bal aan dalkii xataa xildhibaanadu u hayeen aan tegi karin ayaa waxay ka dhaadhiciyeen shacbigii in fikir khalada lagu saameeyo meeshoo la yidhahdo dhulkaan annaga iskalaba haye sidaa aawadeed shacbigii kale way gadoodeen halkaa dagaalaa ka dhacay dagaalkii markuu ka dhacay dhimasho iyo dhaawac fara badan buu u yimid tviyada waa arkayseen dad badanaa ka hadlaayay waxay lahaayeen mataqaanaa dhammaan waa wada dhegaysanayseen meesha waxaa ka jirta faham xumo waxaa ka jirta dhibaato ka timid nimanka sheeganaya inay xildhibaano yihiin oo gidaarada laga aruuriyay ayagoo kabarada jaadkaa jiijiifo nimankaas ayaa dhibaatada ugu weyn ka fuliyey meesha shacabkana isku gubay iskana hor keenay waxaan idiin sheegayaa marka insha allahu tacaala dagaalku waa qaboobayaa ummaddaanina nin walba meeshuu ka yimid uu tegi doonaa u fadhiisan doonaa wayna xasili doontaa biidnillahi alkariim waayahay nabadoone hadda xaggee maraysaa waanwaanti iyo sidoo kale maamulka hirshabeelle oo maxaas ku sugnaa xubno kamid ah xaggee maraysaa waanwaanti labada dhinac wallahi aniga kuma dhihi kara wax waawaanaha meesha ka jiro meelna kuma ogi waawaan aqyada dhabtaa markaan kuula hadlo meeshaas waxaa lagu kala baxay xabad ilaa iyo haddana halkaasay taagantahay meel ka duwan ma laha nimanka waawaanta wadaad sheegaysa waa nimanka dabka horiyeyba oo shacabka isku gubay oo isku dilay oo dhulkaa kale leedihiin iyo waa si leedihiin yiri dhibaatada meesha ugu weyn ay ka dhalatayna halkaasay ahayd marka haddii aad leedahay siyaasiyiintii waxbay qaldayaan oo iyaga dagaalka horinaayo adiga ka odayaal ahaan inaad xalisaan maxaa idinka hortaagan ficlan xaqiiqda markaan kuu sheego soomaalida waxay tiraahdaa geel didaayo waxaana lagama dhex qabtay tiraahdaa haye mar haddii niman sheeganaya inay maamul yihiin annaguna anaanu aqoon inay maamul yihiin oon u naqaano inay yihiin tuugo isbiirsatay dagaal ay kula jiraan shacabkii waxaan dan moodnay shacabka inaan idhaahdo guryihiina difaacda iyo dadkiina waayahay marka hadda ka waran deegaanadii lagu dagaalamay dad weli mise hor fadhiyaan beeluhu mise waa la kala qaaday